munaasabadan ayaa waxay daaraneen mid lagu daafurayo hospitaalka Shaafi Hospital oo hospital casri oo gaar loo leeyahay oo dhalinyaro dhaqaatiir dhawaan ay ka hirgeliyeen degmada qadiimiga ee Boon ee gobolka Salel waxaana dhakhtarka cusub ee Shaafi Hospital si wadajir ah xadhiga maanta uga jaray gudoomiyaha gobolka Salel Mawlid Maxamed Nuur iyo mayorka degmada Boon Zakariya Abib Waadan intaasi kadib waxaa halkan oo barxadda hore hospitaalka Shaafi lagu qabtay munaasabad lagaga waramayay muhiimadda hospitaalkan uu leeyahay bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Boon iyo deegaanada hoos yimaada oo muddo dheer baahi u qabay inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay badiba waxgaradka kala duwan ee ku dhaqan degmada Boon iyo deegaanada kale hoos yimaada salaadiin xildhibaano iyo hormoodka dhaqaatiirta ka howlgasha deegaanada gobolka Awdal barbilaba waxaa munaasabada hadalka iba furay xubno dhaqaatiir oo ku hadlaysay afka mulkiilayaasha hospitaalka Shaafi waxayna ka xog warameen sababta ku kalaftay in xilligan ay ka furaan hospitaal casri ah degmada Boon iyo waxyaabaha uu qaban doono hospitaalka cusub ee maanta sida rasmiga ay u daahfureen isbitaalkan waxa abuuray ama hindisay dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Boon ama degmada Salel oo ku baratay waxbarashadooda caafimaad magaalada Boorama iyo meelo kale oo badan oo iyagu noqday kuwii ugu horeeyay ee wax ku soo celiyay degmadii ay ka soo jeedeen ee go'aansaday inay hantida inta la keenaan magaaladaas Boon markii ay arkeen baahida taalla ee caafimaad oo fudud in halkan lagu qaban karo iyo wixii kale culus ee qofka walka u tagi lahaa in halkan lagu sameeyo ayuu Ilaahayna waafajiyay bulshadana waxa ka rajeynaa inay ka faa'iideystaan way hantidaas iyaga iskale annagu waxa weeyaan annagu kama rabno inaan ka helno macaash iyo profit inaan ka helno kama rabno laakiin waxaan ka rabnaa inay bulshadaasi ka faa'iideysato way hantidaasi ay noqoto hanti iyagu ay leeyihiin halkan aan uga cadeynaynaa waxa weeyaan shaqaalaha maanta caafimaad ee tababaran ee halka keenay waxay u baahan yihiin in bulshadaasi ay soo dhaweyn aad baan inii soo dhaweynayaa bulshada Boon waxaan sidoo kale ugu hambalyeynaya 2 iyo 3 cisho in adeeg free ah oo isbitaalka ka heli doonaan anaga oo isla garanay in bulshada wax lagu celiyo mar walba sidoo kale waxaan gacmo furo ku soo dhaweynayaa cid kasta oo danaynaysa ama cid kasta oo la shaqeynaysa isbitaalka Shaafi Hospital qurbo iyo qolqol joogba cid kasta oo la shaqeynaysa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan maadaama waxa la qabanaya ay tahay badbaadinta dhalaanka iyo isbitaalka waxa iyadna kamida qayb dental ah oo ilkaha xanuunada ilkaha iyo afka ku dhaca oo isna toddobaadkii 2 jeer idin iman doona maalinka khamiista iyo maalinka jimcaha xanuunadan insha Allah waxaan jecelnahay inaan idinka kafeeyno waxa kaloon jecelnahay wixii naga dhiman sida xanuunada indhaha xanuunada maskaxda oo laga dhawaajiyay inaan bartiina idinku keeno dhaqaatiirta oo maalmaha qaar idin yimaadaan haddii Ilaahay yiraahdo intaasi kadib waxaa dhankooga hadalka iska daba qaatay waxgaradka kala duwan ee ku dhaqan degmada Boon salaadiin iyo xildhibaano waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen hospitaalka cusub ee Shaafi Hospital ee maanta sida rasmiga looga daahfuray degmada Boon ee gobolka Salel waan soo dhaweynaynaa bulshadana waan ku soo xidhaynaa qof dambe oo Boorama la geynaya ma jirto oo malaho halka laga bixiyaa maanta dabadeed ma jirto ogaada sida aad iyo aad ugu faraxsanahay dhaqaatiirta caafimaadka u keentay ee ku soo dadaashayna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa dhakhtarka Shaafi ay keeneen dhalinyartii u dhalatay bulshada waxaan leenahay hambalyo baan leenahay haddaan nahay odayaasha qaybta odayaasha xagga ragga waan uga baahi badanahay haddaan dumarka nahay ama caruurtaan nahay aad iyo aad baan uga baahi badanahay waxa weeyaan annagu dhakhtarka noo soo biiray soo dhawow baan leenahay soo dhawow oo halka ka dhawaajinaya inaanu la shaqeyn doono dhakhtarka hadday tahay hanti iyo hadday tahay maxay taageero kale fikira runtii waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa inabada waxaan leenahay ka walwalina waan garab joognaa haddaan ganacsatada nahay caafimaadka haddaan nahay waxaan u baahnayn mar walba waxna garab istaaga wax nala shaqeeya waan ku hambalyaynayaa dhaqaatiirta aad iyo aad baanad ugu mahadsantihiin waa wax weyn oo lagu farxo aadna waan idinku hambalyaynayaa in Ilaahay tacaala wuxuu noqon doonaa Shaafi Hospital
mid si buuxa uga jawaabi doona sidii Sulaymaan Yare dhakhtarka uu sheegay inay u taagan yihiin heliyo haba la garab taagan yihiin si ay u bixiyaan cid waliba rastaha uga soo qayb gasho waxaan leeyahay aad u barakooba ilaahay idamkii waan idin ducaynaynaa sidaasi si lamida waxaa dhankooga hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhakhaatiirta Soomaaliland Dr. Mustafa Jaamac Barkhadle iyo madaxa daaweynta iyo xakamaynta xanuunka TB-da ee degmada Boorama Dr. Maxamed Mahdi waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen hospitaalka cusub ee maanta laga furay degmada Booni isla markaana waxay dhiirigeliyeen dhakhaatiirta ku dhiiratay in halkani hospitaal laga yagleelo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo hospitaalkii ugu horeeyay laga furayo badbaado aad baan ugu hambalyeeynaya saaxiibaday halkaas halka waxaan u joognaa inaanu bulshada Boon kala qayb qaadano farxadaasi iyo arrinka runtii gabagabadii waxaa munaasabadani lagu daafuray hospitaalka cusub ee Shaafi ee degmada Boon ka hadlay meeyarka degmada Boon Sakariya Abi Waadan iyo gudoomiyaha gobolka Salal waxaana ay si isku mid ah u sheegeen inay ku faraxsan yihiin in deegaankooda maanta si rasmi ah looga yagleelo hospitaal casri ah oo gaar loo leeyahay annagu ka maamul ahaan kulli waanu soo dhaweynaynaa haddii alla qadaro mustaqbalkii magaalada Boon in ay gartaan in ay bulshadoodii ugu adeegeen waxay soo barteen oo iyagoo la og yahay duruufaha iyo xaaladaha dalka yaala ay dhaqaalahooga isbitaalka quruxda badan leh ee aynu gudihiisa arkayno ay geliyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqay gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur ayaa waxa uu mid indhaha uga soo qaaday qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay hospitaalka Shaafi ee degmada Boon isagoo sidoo kale warbixino kala duwan ka dhageystay dhakhaatiirta gacanta ku haysa hospitaalka cusub waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama